aniga iyo wafdigii ila socday anigoo matalaya waxaan ka mahad celinayaa soo dhaweynta diiran ee ay muujiyeen walaalahay reer Caabudwaaq oo aan aaminsanahay inay tusaale u tahay rajada dalkeena uu leeyahay iyo dawladnimada mustaqbalka dadkii Soomaaliyeed ee maanta isku soo baxay oo saacado badan taagnaay qorraxda oo u taagnaa inay annagana soo dhaweeyaan waxay u taagnaayeen inay dareemayeen in dalkooda ay rajo ka jirto waxay muujiyeen jacayl ay dalkooda u qabaan waxay fariin u dirayeen madaxdooda oo ah waxa ay shacabku ka filayaan waxay sawirayeen iftiinka mustaqbalka waxay noo sheegayeen inaanay qabiil iyo qoloqolo cidna ku soo dhaweynayn laakiin ay ku soo dhaweynayeen qarannimo ma garanayo tusaale iyo fariin ka xoog badan oo qof Soomaaliya oo siyaasi ah ama mas'uul ah loo diri karo oo ka xoog badan in gabdho iyo wiilal yaryar oo aan qaan gaarin iyo kuwa qaan gaaray oo aan weligood arag ra'iisul wasaare ama madaxweyne ama wasiir taagnaa qorraxda iyagoo ka ilaalshanaya dawladnimo iyagoo dareensan haddii ay wiilashaas iyo gabdhahaasi garteen in mustaqbalkoodu uu ku xiran yahay dawladnimo ka madax bannaan qabiil iyo qabyaalad waxaan ugu yeerayaa qof walba oo Ilaahay u dhiibay mas'uuliyadda Soomaaliyeedna inuu fahmo in sida kaliya oo mustaqbalka carruurtaas wax looga qaban karo inay tahay dawladnimo dadkii Caabudwaaq isugu soo baxay waxay annaga noo dhiibeen fariin culus fariintaas waxay ahayd haddii aan shaqaynaynay inaan shaqadeena sii laba jibaarno haddii aan marmar niyad jabsanayn ama daal arkaynay inaan aragno wejiyadoona aqbalnana inay shaqo noo dhiibteen fariinta ay noo soo direen waxay ahayd waxaan idinku aaminay mas-uuliyaddii dalka bannaankaan idiin soo istaagnay si aad ummadda Soomaaliyeed dibka uga saartaan tusaalihii maantayna loo kaga dhiibay Caabudwaaq wuxuu wax ka tari doonaa dawladnimada mustaqbalka anigoo aad ugu faraxsan in waqti kooban gudahood aad muujiseen xilkasnimadaas iyo dawlad jacaylkaas ayaan haddana rabaa inaan idiin sheego Caabudwaaq waxay qayb ka tahay galmudugna waxaa hor taagnaa caqabado waqtiyadii la soo dhaafay dawladda federaalka oo aniga iyo madaxweynuhu aan horjoogayaasha ka nahay waxaa ka go'an si hagar la'aan ah in dhidibada loo aaso galmudug dhamaystiran waxgaradka odayaasha dhaqanka gabdhaha Soomaaliyeed aqoon-yahanada dhalinyarada iyo dadka reer Caabudwaaq oo halkan isugu yimid markaa waxaan leeyahay haddii aad hal gacan kula shaqaynayseen dhisidda dawlad goboleedka galmudug laba ka dhiga sababtu waxay tahay dawladnimadii maanta aad muujiseen galmudug oo dhan ayaa looga baahan yahay waxaana aaminsanahay inaad wax weyn ku tari kartaan geedi socodka dawladnimada galmudug ay rabtay inay u hana qaado
halkan waxaan u nimid inta aanan gaarin go'aano masiiri ah oo taabanaya mustaqbalka carruurta Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa reer Galmudug inaan marka hore aqbalno inaan dhageysano talooyinka dadka ay saameyn doonto go'aanada aan gaarayno sidaas daraadeed ayaan uga soo bilownay Dhuusamareeb waan soo marnay Cadaado waan Caabudwaaq caawa u joognaa waan meelo kale sii mari doonaa si aan u dhageysano talooyinka dadka Soomaaliyeed ee reer Galmudug oo ku aadan fikirka ay ka qabaan qaabka ugu fudud oo loo dhameystiri karo heerkulka dawladnimo ee dawlad goboleedka Galmudug dalka Soomaaliyeed oo dhan uu isku xirxiran yahay dawladnimadana way hana qaaday laakiin si dawladnimada loo daadajiyo waa in dawlad goboleedyada la xoojiyo dawlad goboleedkuna ma ahan magaalo madaxda dawlad goboleedka waa degmooyinka waa tuulooyinka waa in dadka Soomaaliyeed la dareensiiyaa dawladnimo waa in annagana la xisaabtamaa madaxda dawlad goboleedka la xisaabtamaa madaxda degmooyinka la xisaabtamaa madaxda tuulooyinka la xisaabtamaa isla xisaabtanka dhabta ah waxa uu yahay in shacabka Soomaaliyeed degmo magaalo madax iyo tuulo dibad iyo gudo ay la xisaabtami karaan madaxdooda sababta aan u aaminsanahay marka inay rajo jirto waxay tahay dadka Caabudwaaq isugu soo baxay kuwa Dhuusamareeb isugu soo baxay iyo kuwa Cadaado isugu soo baxay waxay u soo baxeen dawladda Soomaaliya ee uma soo baxeen Xasan Cali Khayre macnaheedu waxay tahay marka reer Caabudwaaq dalkeenu waxa uu ku dhawaad 30 sano ku dhex jiray caqabada dhig badan oo la kufaa ka dhacay in laga saaro waxay rabtaa in la geliyo xoog aragti dheer iyo maskax caafimaad qabta waxaan kala dooranaynaa inaan u dhaqanno sidii hore oo ku salaysneed aragti gaaban nin jeclaysi dangaar ah iyo si ka duwan oo nagu ridaysa dariiqa aan kula noolaan karno qarniga 21aad kaasoo macnaheedu ay tahay inaan aqbalno in la isla xisaabtamo annaguna aan nahay adeegayaashii shacabka Soomaaliyeed in aan dalka madax ka nahay macnaheedu ma aha inaan milkiilayaalna dalka inaan madax ka nahay macnaheedu waxay tahay inaan mas'uuliyiin nahay la xisaabtamo macnaheedu waxay tahay in dhaqankeenu uu ku salaysan yahay sida gabadhii iyo wiilkii banaanka Caabudwaaq maanta taagnaa go'aanka annagu aan gaarno u saameynayo laakiin haddii go'aanka aan gaarayno aan ku fiirino indhaha siyaasiyiinta ama afarta indhaheenu ay qabtaan waxaan u dhaqmaynaa si aan ahayn sida ay dadka Soomaaliyeed oo qoraxda noo taagnaa noogu dhiibteen mas'uuliyadda dawladnimadu waxa ay tahay gacan la kor saaray bulukeeti la kor saaray taaka meel taalay oo taaka kale lagu daray qof khalad ka celiyay qabiilka waan iska daynay cadaaladda waan aqbalnay aragtida gaaban oo ku bedelnay aragti fog dawladnimadu waxa ay tahay shacabku inay aqbalaan iyaga inaan u shaqeyno hurdadana ay ka kacaan dawladnimadu waxa ay tahay in mustaqbalka dalkan la gaarsiiyo in wiilashii iyo gabdhihii banaanka taagnaa mustaqbalka iyaga codkooda ay dhiibtaan si ay noqdaan kuwa annaga noola xisaabtami lahaa waxaan aad mar kale uga mahad celinayaa sida diiran oo aad noo soo dhaweyseen haddii mararka qaarkood reer Caabudwaaq aad dareentaan ama la idiin sheego caqabadaa jira in caqabada jiraan mararka qaarkood waxay ka mid tahay dawladnimada
laakiin 20 sano la soo dhaafay marka lagu qiyaaso maanta meesha aan taagannahay waxaan aaminsanahay ummadda Soomaaliyeed inuu u baxayo iftiinkaas in kulli shacabka Soomaaliyeed la wada gaarsiiyo gacan walba ayaa loo baahan yahay in shacabka Soomaaliyeed hurdada ka kacaan waa mahadsantiin reer Cabud waa salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh